war-saxaafadeedkan oo goor dambe oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa digreetay madaxweyne ku magacaabay wasiir ku-xigeenno agaasimayaal guud iyo la taliyayaal madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad farqadiisa labaad ee dastuurka Soomaaliland markuu tixgeliyay ahmiyadda weyn ee wasaaraduhu u leeyihiin dalka iyo dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta joogooyinka banaan ee wasiiru dowlayaasha wasiir ku-xigeenada Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu fiirsaday kartidooda aqoontooda hufnaantooda shaqo markuu ku qancay inay hanan karaan xilka loo magacaabay wuxuu go'aansaday in mudane Cabdilaahi Faarax Maydhana laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane Cabdilaahi Dheere laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in mudane Maxamed Muuse Diiriye laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha in mudane Cabdi Daahir Camuud laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo bedelay in mudane Rashiid Ismaaciil Kaahin laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Cabdirashiid Xuseen Cabdalle Carab laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiiru dowlaha gobolada Bari in mudane Cabdisalaan Maxamed Xasan laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland in Dr. Faarax Ducaale laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Kaysar Cabdilaahi Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland in mudane Yuusuf Cismaan Garas laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo loo soo bedelay in mudane Cismaan Axmed Jaamac laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland in injineer Cabdi Maxamed Hirad laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud guriyeenta iyo gaadiidka Soomaaliland in mudane Mahdi Cismaan Cabdilaahi Buuri laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland in injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Boos Mire Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland in mudane Jaamac Cabdilaahi Biin laga bilaabo taariikhda maanta ahaado wasiir ku-xigeenka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha magacaabista agaasimayaasha guud in mudane Cabdifataax Saciid Axmed Guule laga bilaabo taariikhda maanta ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland in mudane Farxaan Aadan Haybe laga bilaabo taariikhda maanta ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabista la taliyayaasha madaxweynaha in mudane Cabdisamed Cumar Maal laga bilaabo taariikhda maanta ahaado la taliyaha madaxweynaha arrimaha hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga in injineer Cabdinaasir Garaad Abshir Saalax laga bilaabo taariikhda maanta ahaado la taliyaha madaxweynaha arrimaha gobolada Bari war-saxaafadeedkan kale oo ka soo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta Jimcaha wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ku magacaabay digreetay madaxweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland inuu ahaado mudane Aadan Cabdilaahi Cabdalla Nuur oo hore u ahaan jiray agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibadejinta Jamhuuriyadda Soomaaliland war-saxaafadeedkaasna waxaa ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr